waxaa si weyn loo falanqaynayaa kulanka la filaya saacado kadib inuu ka furmo gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan Virginia kaasoo u dhaxeeya saraakiisha ugu sarreeya ciidamada ammaanka ee dowladda Mareykanka. waxaa la isweydiinayaa waa maxay sababta waqti xaadirkan Mareykanka in ka badan 800 oo sargaal oo isugu yeeray. ma waxaa loo diyaar garoobayaa dagaalka saddexaad ee dunida. marka la eego Mareykanka sanadii ugu dambeeyay wuxuu waday dhaqdhaqaaq xoogan oo doonayo inuu dib ugu soo celiyo saameyntii uu ku lahaa caalamka. falanqeeyaasha qaar iyo warbaahintu waxay ku doodayaan in Mareykanka u muuqanayo u diyaar garowga dagaal adag. makii saddexaad ayuu noqon doonaa mise dagaal uu la galo dowladaha gobolka waa waxyaabaha la isweydiinayo. Mareykanka waxaa la hubaa diyaar garowgiisa ugu xogan inuu diiradda ku saarayo loolanka kala dhexeeya dowladda Shiinaha. waxaa kaloo qobarrada qaar ay ku doodayaan in ujeedada kulankani ay tahay in la kala sifeeyo ciidanka. in wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka uu doonayo in ciidamada uu ka saaro saraakiil loo arki karayo inaysan daacad u ahayn madaxweyne Trump lana sameeyo hoggaan cusub oo ciidanka kuwaas oo aqoonta iyo mabda'aba ku taageeraya madaxweyne Trump. sidoo kale warbaahinta qaar waxay aaminsan yihiin in laga walaacsan yahay xaaladaha dhanka amniga isla markaana ay jirto halis dhanka amniga oo keeni karta in la isugu yeero 800 oo jeneraale iyo saraakiil silsile ah iyadoo hal meel la isugu keenayo lana tixgelinayo khatarta suuragalka ah ee Mareykanka uu la kulmi karayo haddii cadow weerar uu ku soo qaado. dadka qaarkiina waxay qabaan inay dhacdadan ay la barbardhigayaan tii Hitler uu sameeyay sanadkii 1935 markii generaalada Jarmalka loo yeeray oo lagu qasbay inay u dhaartaan inay daacad u yihiin Hitler. sidoo kalena waxay dadku ay leeyihiin arrintan waxay dadka xasuusinaysaa dhacdadaasi in marka saraakiisha Mareykanka suuragal ay tahay in lagu qasbo in laga shakisan yahay laguna qasbo inay madaxweyne Trump u dhaartaan oo shakiga ay ka bixiyaan oo ay yiraahdaan kuwa aragtay ayaan nahay wixii hadda ka dambeeya soo tani ma noqonayso marka mabdi'iisa inay ku taageeri doonaan. dadka qaar ayaa aragtidaasi qaba. dadka qaarkiina waxay qabaan aragtida ah in suuragal ay tahay isbedel in lagu sameynayo saraakiisha ciidanka. waxaa horay sidaani loogu sameeyo saraakiil ciidamada cirka oo Mareykanka ka tirsanaa si gaar ahaaneed General Charles Brown oo ahaa nin madow ah oo saraakiisha ciidanka ee Mareykanka ka mid ah iyo Admiral Lisa Franchetti waxay ahayd haweeneydii ugu horeysay ee hogaamisa ciidanka badda ee dowladda Mareykanka. waxaa sidoo kale la bedelay saraakiil sare oo ka tirsanaa dhinaca qaybta gaashaanbuurta NATO ama Mareykanka halkaasi ku matalayay iyo xubno ka tirsanaa hay-adda sirdoonka ee militariga. waxa muuqata marka madaxweyne Trump iyo wasiirkiisa gaashaandhigga inay doonayaan ugu yaraan inay yareeyaan tirada generaalada haddii tallaabadan ay qaadaan oo ay kordhiyaan tirada askarta si loo dhiso ciidan badan oo toos ah loona dhimo dhibaatada xooggan ee gaari karta saraakiisha iyo maamulka ciidanka. tani marka waa arrin aan caadi ahayn taariikhda Mareykanka marka la eego waxaana suuragal ah in lagu dhisayo ciidan leh mabda' cusub oo u diyaarsan dagaal caalami ah ama ciidan lagu sifayn karayo inay daacad u yihiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. kulanka maalinta birri oo Talaada ayuu ka dhici doonaa saldhigga ciidamada badda ee dowladda Mareykanka ee Quantico oo gudaha dalkaasi Mareykanka. waxaana la qorsheeyay kulankan muddo saacadaha inuu socdo. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha. laakiin dhinaca kale markaad eegto ma waxaa loo diyaar garoobayaa dagaalka saddexaad ee dunida. saraakiisha iyo qobarrada dhanka amniga waxay aaminsan yihiin in xaaladani aysan ahayn mid caadi ah. bariga dhexena waxaa laga baqayaa mar kale dagaal kale oo adag inuu aado iyadoo aan la saadaalin karaynin halka dhacdada lama filaanka ay ka bilaaban karto. laakiin markaad eegto sida ay wax u socdaan waxaa lama huraan mar kale in madaxa la isla galo dagaalo kalena ay dhacaan. wixii dhacay bishii Juun ee sanadkan oo dagaal u dhex maray Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil waxay dadka qaarkii ku tilmaamayaan wax bilow u ahaa isbeddelka guud ahaan ee gobolka bariga dhexe. aragtidaadana la wadaag like muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cumreeyo waalidka oo dhintay ama sariiryaal ah. shirkadda Almahdiyin ayaa ku qabanaysa hawshaasi iyadoo lagu soo bandhigayo ama lagu soo duubayo sida ay wax u dhacayaan. fadlan la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo si adigoo gurigaada jooga lagaaga cumreeyo waalidkaaga haddii aad awoodid. mahadsanid.